dhawaana ayay ahayd markii cudurka uu dhaliyo fayraska corona uu ka dilaacay dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan kadibna wuxuu ku faafay guud ahaan dhulka Shiinaha waxaana uu sii gudbay isagoo gaaray wadamada Japan, Korea, Thailand, Mareykanka, Faransiiska iyo Ethiopia. Cudurkan uu dhaliyo fayraska corona ayaa asalkiisu ka yimid xayawaanka waa sida iyagu aaminsan yihiin wuxuuna la nooc yahay fayraska SARS oo laayay 9% dadkii uu asiibay. Cudurkan hadaba markuu dilaacay dalka Shiinaha waxay isku dayeen inay xakameeyaan ayagoo magaalooyinka ku soo rogay bando inaan cidna gali karin cidna ka bixi karin taasoo ujeedadu tahay inaan cudurkaasi ku faafin dad kale. si kastaba ahaatee dad badan oo muslimiina ayaa qaba in cudurkan uu yahay ciqaab ku habsatay dalka Shiinaha kadib markii ay dulmiyeen balaayiin muslimiin ah oo reer goora kuwaasoo loo diiday inay muujistaan diintooda iyo in akhriyaan kitaabka sidoo kale xataa inay isku safraan ayaa loo diiday 1 milyan oo muslimiinta reer goora ayaa xasuuq diimeed lagu hayay ayaa dhashay cadadii Ilaahay oo ah cudurka corona kaasoo ku qasbay in dhayartii Shiinaha in 18 milyan oo kamid ah inay safraan ama magaalada ay ka soo baxaan. Haddaba isku soo wada duuduubo waxa dalka Shiinaha ka dhacay wax ku duugan mucjisooyin badan oo diinta Islaamku ay ka warantay 15 qarni ka hor. lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ma soo ifbaxdo faaxishada sinada hadiiba ay ka soo ifbaxdo qoom oo ay muujisteen waxa dhexdooda ku faafa daacuunka iyo cudur aan ku dhici jirin dadkii ayaga ka horeeyay. First point to note is that for us to be able to successfully succeed, and I just want to go back to this. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dawladda Soomaaliya u soo jeediyay talo ku aadan sidii dhaqaalaha looga jar lahaa kooxda Al-Shabaab maruu ka hadlayay madasha Atlantic Council. Kenyatta ayaa madasha ka sheegay in kooxaha xagjirinta ee maleeshiyaadka ee dambiilayaasha ay mar hore saameyn xun ku yeesheen xasiloonida iyo midnimada gobolka. ururka ayaa si cad u sheegay in Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirinta aan marnaba lagu guuleysan karin in laga jaro dhaqaalaha haddii aan si cad looga hortagin musuqmaasuqa iyo suuqa madow. beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay inay ka kaashadaan sidii looga hortagi lahaa wax istabamarinta taasoo uu arko inay tahay wadada kaliya ee Al-Shabaab looga adkaan karo. Uhuru Kenyatta ayaa si gaar ah ugu taliyay in laga hortago ganacsiga sharci darrada iyo midka suuqa madow. ugu dambeyntii Uhuru Kenyatta ayaa sheegay dhibaatada ka taagan Soomaaliya ay sabab u tahay dagaal wakiileed ka socda dalka inkastoo uusan magacaabin cid gaar ah. hadalka Uhuru Kenyatta ayaa ku soo aaday xilli ay jirto xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya iyadoo shalay ay dawladda Soomaaliya soo saartay digniin ku aadan inay Kenya joojiso fargelinta siyaasadeed ee midka ciidan oo ay ka wado gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo.